horta shirka wuxuu ahaa ujeeddo badan dadka Soomaaliyeed uma aha dan in maxaan ku iraahdaa meesha lagu kala dareerso dan uma aha waxa fiicnaan lahayd in la yiraahdo waxa dhacay meesha waa la isku fahmay oo memorandum of understanding baa la kala qortay waa la heshiiyey taas bacdama la waayay aniga waxaan u arkaa meesha burbur badan inuu ka iman doono ujeeddada ka dambaysana waxa weeyaan maxaan ku iraahdaa dalal shisheeyaa ka dambeeya waxaa fiicnaan lahayd in la raaco awaamirta dawladda in la raaco ayaa fiicnaan lahayd dawlad shisheeye wax dan oo inoo haysa ma jirto dagaal badanaa ku furan anigu waxaan u arkaa burbur oo cusub oo dalka ku yimi inay tahay barnaamijkan burburkiisa waxaa ka dambeeya Puntland iyo Jubaland nimanka hogaaminaya ujeedda shisheeyaana ku jirta meesha contract baa yaala caddaynta waxaa caddaynaya waxay ka hor yimaadeen danihii Soomaalida oo dhan bay ka hor yimaadeen intaasoo shir baa loo qabtay dawladda intaasoo shir bay qabatay acceptable waa laga waayay wax ogolaansho ma jirto waxa la yaala wixii la keena negative runtii lagama maarmo Jubaland iyo Puntland lagama maarmo in oo Soomaalida ay ku soo biiraan lagama maarmo in waji cusub la furo oo balle dhareeriyo la keeno mar kale dadka reer Jubaland iyo maxaan ku iraahdaa Puntland iyagana waxaan dhihi lahaa waji aan wajiga ahayn inay la yimaadaan magacaygu waa Garaad Cali Maxamed Xasan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم haddii aan ka hadlo aragtidayda shirkii burburay in uu burburayo waa mid iska qoran xag ilaahiyan rabbaaniya laakiin aragtida oo dadweynaha ummadda Soomaaliyeed in dalka ay lahaayeen qurba joog iyo galjoog ay sugayeen doorashooyin ay doorashana u iman أحمد محمد إسلام أحمد ملوه سعيد عبد الله الدني إن مسيرك أمة الصومالية قرن ماذا ذلك عيد سنتو إن يسوع من عاصمة مقدسه إن يين رك مرتكو عاصمة قرن كدولة دي الصومالية هذا دني وشيء واحد كم جيران واحد أسوا إسكافر لي بنتلان أي تاريخ 17 سنة إلى آذرا 30 سنة دورشوا ودير لها وحنا وشيء لا تاريخ 17 دورشوا إن ديار تاي ذلك waxay bilaab lahayn inay soo xolaan salaadiinta Puntland oo diyaar dhaqameed xamar ma imaateen isagoo xalano u socda wuxuu hadda sheegayna waa wax kama jiraan isagoo diidan masiirka caasimadda Muqdisho ay xaq u leedahay aqalka sare annagoo og waxaan ugu baaqayaa Saciid Cabdullaahi Dani in ay shacabka reer Puntland waqti xaadir ay banaan baxayaan waa la soconaa aad baan uga sanay wadaniyiin dalka inuu isqabsadana jecel دني أحمد مدوه ومدة الصوماليات مال علي لجان مدوه مشرحين تو الدورش الرادين نمو وناكسين الناس اللي جرين يجوا مدحوين يلا جاي هذا الكمقلي وايين waxaa igu weydiisay shirkii shalay oo lagu kala tagay horta Soomaali waxa u fiican inay dawladnimo ay qaadato dawladnimona waa haysanaa hadduu ilaahay idinkiis uu leeyahay waddankan waxyaalo badan oo soo maray wuxuu soo maray dhib burbur iyo baaba oo loo kala harin ummadda Soomaaliyeed maanta uma habboona in muxuu ahay burburkii shalay ay ku noqoto waxay jeceshahay midnimo iyo Soomaalinimo shirkii shalay haddaan u soo noqdo nimanka la yiraahdo Dani iyo Madoowe dawladnimo ma ogola mana rabaan waxay rabaan wuxuu ahay dana shisheeye inay u adeegaan in la tanaasulo in Soomaali loo tanaasulo in Soomaali muxuu ahaa hadduu ilaahay yiraahdo magaceeda iyo muuqaalkeeda burburka iyo dhibaatadii soo gaartay laga tanaasulo waxaanu qaramada midoobay u sheeganaa dawladaha United Nations ilaa Soomaaliya ismaamuli karin talana kala qaadan karin shanta maamul goboleed oo dawladda dhexe ka mid ahaa inay waraaqa soo qoraan inaanay maamul ahayn oo aanay dawladda dhexe ka tirsanayn ilaa waxay yiraahdeen dawladdii xilligeedu wuu dhammaaday baarlamaankii
iyo madaxweynihii dowladdii federaalka ahayd ee Soomaaliya xilligeed waa dhammaaday bay yidhaahaan iyaguna dowladday ka mid ahaayeen in dhammaan Soomaaliya oo dhan uu xilliga ka dhammaaday oo aanay dowlada ka jirin ha wada saxiixeen